بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستا جوجتان كسر هذا البرنامج كمالينمو ومالين جمعة مبارك و25 شنطة بيش أكتوبر سنة 2024 قد بدأ برنامج كتكون مغلي دونتانا وحا كاملة وزير دفاع إسرائيل وحكود واقعين كجران مالنا أدق لمشهد سراكيشة إيو أسكرتا إسرائيل أيا كورو دافيسا طبعا iyadoo la xaqiijiyay 5 kamid ah 10 kaasina yihiin Israa'iil sarsara oo muhiimad u lahaa ciidanka Israa'iil. Dilalkan waxay ka dhaceen koonfurta Lebanon iyo waqooyiga marinka Gaza. Macluumaad ayaad ka maqli doontaan sida ay u dhaceen weerarada lagu dilay askartan iyo sheekooyinka la xiriira. Gudaha Israa'iilna waxaa ka dhalanaya dhaawacyo culus gantaalada ay ku weerarayso Hezbollah deegaanada Israa'iil haysatay waqooyiga. Muuqaalada aad arki doontaan waxaa ka mid noqonaya burbur gaaray dhismayaal ku yaala gudaha Israa'iil oo gantaalada ay Hezbollah ku weerareen ka dhashay. Ciidanka Israa'iil ku sugan koonfurta Lebanon way cabanayaan waxayna eedeynayaan dawladooda waxayna sheegayaan in halis la gelinayo nafsadooda. Maxay tahay cabashadaas? Faahfaahin ayaan iyaduna idinkaga haynaa. Howlgallo ay Mareykanka Gaza ka fuliyeen dhaqaaqyada iska caabintana waad maqli doontaan iyo warar kale oo ay ku jiraan Shiinaha, Ruushka iyo Iran oo weeraro dhinaca internetka Mareykanka ku qaaday. Shirkadda Microsoft ayaa ku dhawaaqday weeraradaas iyo sida ay dalalkan u kala qaadeen. Weerarkii Turkiga ka dhacanaya sheegtay warbixinta u dambeysay ayaa la soo saaray. Soomaaliyana waxay isku diyaarinaysaa mashruucii ugu horeeyay ee lagu raadinayo in kheyraadka dabiiciga ah ay ku jiraan gaaska iyo shidaalka in la soo saaro. Munaasabad ka dhacaysa Muqdisho ayaana lagu daafuri doonaa markab uu Turkigu leeyahay oo baaritaankaas ka sameyn doona xeebaha Soomaaliya. qodobada ay wararkii ugu dambeeyay caalamka ay maqli doontaan mar kale soo dhawaada. Maalmihii ugu dambeeyay waxa sare marayay xasuuqa weyn ee Israa'iil geysanayso balse maanta waxa sare maraya baroorta iyo tacsida taalo guryaha Israa'iil sabab la xiriira in dhimashada saraakiisha sare ee Israa'iil ay tirabeel noqdeen askartuna intaas ay dhaafinba. Maanta waxa wasiirka difaacu celin waayay in uu warbaahinta hor yimaado oo uu sheego waa Yoav Galantane in ay u tahay maanta maalin ku adag dadka Israa'iil. Tani wuxuu sheegay in ka dambeysay kadib markii la dilay 11 saraakiil iyo askar isugu jira hal weerar oo ka dhacay saakay koonfurta Lebanon. iyadoo la xasuusto in xalay iyo shalayba ayna dhacayeen dhimasho badan oo soo gaarisay ciidamada Israa'iil. Intaa waxaa dheer isla waqtiga ay dhimanayeen ciidanka Israa'iil ku sugan koonfurta Lebanon xadka dhulka Lebanon iyo gobolka Israa'iil haystay waqooyiga ay wadaagaan waxaa sidoo kale dhiigga ciidanka Israa'iil uu ku daadinayo gudaha marinka Gaza. Waqooyiga Gaza waxaa lagu dilay 4 saraakiil iyo isugu jira askar. Markaan ku laabano sheekada la xiriirta dhimashada ka dhacday koonfurta Lebanon waxa la sheegay in ciidamada gootooyinka hubeysan ee Radwan ee Hezbollah ay adeegsadeen waxyaabo ku cusub ciidanka Israa'iil sabab la xiriira inay soo qoodeen dhulka oo ay yimaadeen goobaha ay ku sugnaayeen oo ku nasanayeen ciidamada Israa'iil. Ma jirin wax weerar oo ciidanka Israa'iil la kulmeen inta ay dhaqaaqa iyo socodka ku jireen balse waa barigii hore ayaa waxa la sheegay in ciidamada Israa'iil mar ay ka war heleen in dhulkii la soo qoday oo loogu yimid goobaha ay ku nasanayeen. Taasina waxay dhalisay in wax u muuqda weerar bartilmaameedyo toos ah in marka hore la beegsaday saraakiil sarsare oo hogaaminayay guutooyinka jiid hore u joogta ciidanka Israa'iil ee dhinaca koonfurta Lebanon. taasi waxay dhalisay in ugu yaraan 6 sarkaal la dilo waxa sidoo kale la dilay tiro kale oo askar ah. Telefishinka Al Jazeera wuxuu sheegayaa in ciidanka Israa'iil ay direen in 23 xubnood oo kale oo saraakiil iyo askar ku jiraan in looga dhaawacay dagaalada ka dhacay koonfurta Lebanon. Inta uu kuma ekay gudaha xarunta warfaafinta ciidanka Israa'iil la mashquul baahed maanta kadib markii ay shaaciyeen dhimashada waxa xigtay in sidoo kalena ay ku khasbanaadeen inay sheegaan weerar ka dhacay waqooyiga marinka Gaza aagaga Jabaaliya in looga dilay 4 saraakiil iyo askar isugu jira. Tanina waxa uu ku khasabtay wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Galantane oo maalmihii ugu dambeeyay booqanayay furimaha hore ee dagaalka isagoo sheeganayay in guusha oo dhan bay dhinacooda taalo oo loo baahan yahay in ay si adag u dagaalamaan in maanta sheegay in ay u tahay maalin aad u adag dadka Israa'iiliyiinta ah. Dhimashada iyo dhaawaca askarta un maanta ma gaarinay sidoo kalena weeraro gantaalo iyo diyaaradan duuliyaha lahayn oo iyagu noqday kuwa aan kala joogsi lahayn ayaa ururka Hezbollah wuxuu ku qaaday deegaano ka tirsan waqooyiga dhulka Israa'iil haysato. magaalada lagu magacaabo Shomeera ee galbeedka gobolka Galilee ee ka tirsan gobolka waqooyi Israa'iil haysatay ku dhow xadka Lebanon ayaa waxa la sheegay in 10 qof ay ku dhaawacmeen gantaalo ay Hezbollah ku weerareen. Sidoo kale muuqaalada halka laga helay oo muuqaalkan hadda aad arkaysaan oo kamid yahay waxa la arkay burbur xoog leh oo gaaray dhismayaal dhowr ah. walow Israa'iil si dhaqso ah u bilowday inay tafatirto oo ay faafreeb ku sameyso muuqaalada iyo shaqooyinka la xiriira gantaalada maanta lagu weeraray la sheegay in dhinaca koonfurta bartamaha iyo waqooyigaba inay burbur iyo dhaawac ay ka geysteen. raadiyaha ciidanka Israa'iil ma uusan qarin xaaladda ay wajahayaan dhinaciisa. sidoo kale telefishinka Channel 12 ayaa sheegay in kaliya magaalada lagu magacaabo Shomeera
ay ku dhaawacmeen 6 qof oo 4 ka mid la sheegay in dhaawacyo culus ay qabaan. 10 kalena waxay ku dhaawacmeen isla deegaano ka tirsan gobolka Galilee iyo aagaga ku dhow Haifa. Iyadoo gantaalada ay wax dhaawacayaan ayaa hadda waxaa la arkayaa in deegaanadii Israa'iil ee gobolka waqooyi dhulka haysta kamid ah ilaa Haifa inay dhul lama degaan oo cillaa oo qof u soconayna isku bedeleen. Tan waxaa loo arkaa inay tahay sababta ku qasabtay inay bartilmaameedsadaan Hezbollah dhismayaasha si ay qasaaro u dhaliyaan. Inta kuma eka waxyaabaha laga soo tabinayo dhinaca Israa'iil, wargeyska Yacd Ahronos ayaa isagoo xiganaya Israa'iil Israa'iil oo ku sugan xuduudda waqooyi iyo xadka gobolka koonfurta Lebanon waxa uu xaqiijiyay in soo food saartay xaalad dayacaad iyo inaan la ilaalinaynba danna aan laga lahayn ciidamada dagaalka la geliyay ee ku sugan koonfurta Lebanon iyo xadka gobolka waqooyi dhulka Israa'iil haysto. sargaalkan la hadlayay wargeyskan Yacd Ahronos waxa uu sheegay inay kordhayaan dhibaatooyinka dayacaadda ah ee la kulmayaan, taas oo uu sheegay inay ka dhalanayso dhimashada iyo dhaawaca askarta Israa'iil. sargaalkan uu sharaxayay waxyaabaha ka cabanayaan iyo in lagu khiyaamay dagaalkaas iyo waxyaabaha hadda dowladdu ku dhaleeyay saraakiisha sare waxaa kamid ah in aysan helin wax xog ah iyo wargelina, taasina inay keento mararka qaarba goobaha ay ku nasanayaan iyo salagyadooda sida hadda aragnay weerarka Hezbollah qaadayba in weerarada ay u yimaadaan halkii la doonayay in iyagu weerar fuliyaan oo ay beegsadaan gutooyinka hubaysan ee ururka Hezbollah ee Radwan. sargaalkan waxa uu kale carabka ku adkeeyay inay jiraan dayacaadaas badan askar ku dhimatay iyo kuwa ku dhaawacmay, wuxuuna cadeeyay hadda in dhibaato weyn ay ka soo fosaarayso jiidda hore ee gobolka waqooyi dhulka Israa'iil haystay xad kale leh koonfurta. wuxuu tilmaamayaa dhibaatooyinka ugu weyn hadda ay tabayaan inay tahay inaysan la socon dhaqdhaqaaqyada agagaarkooda ka dhacaya, xog sirdoon iyo xog kale oo dhinaca ammaanka iyo digniin aysan helin. wuxuu sheegay in gantaalada la hago ee ka imaanaya dhinaca ururka Hezbollah in ay qasaaro weyn gaarsiiyeen goobihii xarumaha u ahaa ku yaalay xadka dhinaca waqooyi dhulka Israa'iil haystay xad kale leh koonfurta Lebanon. tanina waa war dhabahantii aad u adag marka laga hadlayo dhinaca Israa'iil iyo dhimashada oo kordhaysa in maanta haddana mid kamid ah wargeysyada ugu waaweyn bogogiisa hore ay Israa'iiliyiintu ku arkayaan dayaca ciidamadooda haysta, iyadoo waxa way tacsidu iyo barodiiqo taalo guryaha ayaa haddana sidoo kale waxa ilida loo soo dhigayaa bogoga hore wargeyskan Yacd Ahronos. tani waxa ay la xiriirtaa iyadoo dhawaan telefishinka CNN ee dalka Mareykanka laga leeyahay wariye ka socod oo tagtay jiidda hore ee dagaalka ee koonfurta Lebanon iyo xadka gobolka waqooyi Israa'iil haysto ay soo warisay in inta badan askarta Israa'iil ay dalbanayaan in dagaalkan la joojiyo sabab la xiriira in uusan jirin bay sheegayaan qorshe waxtar ah oo dagaalkan ay ku guuleysan karaan, dhibaato badan ay la kulmayaan. sidoo kale waxay ka cabanayeen cimilada halka ka jirta in dagaalyahanada la dagaalamayaan ay ka duwan yihiin dagaalada hore ay soo galeen, hubka horumarsan ee sababaya dhimasho badan oo gaaraysa sidoo kalena inay nafsadooda khatar gelinayso. qaarkoodna waxay dalbanayeen in dagaalka meesha lagu joojiyo aan la balaarin oo guryahooda ku laabtaan. dhabahantii waxay hadda muuqanaysaa in qardajeex uu samaynayo Netanyahu iyo saraakiishiisa sare uu ku khasbayo. waxaan ognahay wasiirka difaaca inuu dhawaan Netanyahu miiska u soo saaray inuu bedelayo haddii uusan qaadin weerarada dhinaca Lebanon oo uu ka soo horjeeday wasiirka difaaca Yoav Gallant in bilaa qorshe la qaado. waxaa muuqanaysa inaysan jirin qorshayaal waxtar ah oo Israa'iil la socda weerarada, balse waxaa muuqanaysa si indho la'aan ah in Israa'iil weerarada u ballaarinayso oo u qaadayso. taasoo jirta ayaa hadda warbaahinta afka maamulka Israa'iil ku hadasha waxa uu telefishinka Al Jazeera ka soo xigtay iyagoo sheegaya qorshaha lagu weeraray Iran waxay sugayaan oo kaliya ogolaanshaha siyaasadeed ama go'aanshaha hoggaanka. waqtigii jawaabta waxay la xiriirtaa arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan suurtagalnimada in Tehran ay weerar degdeg ah soo qaadi karto. hadda Israa'iil waxay la tacaalaysaa in wax badan falanqayso, wax badan ay ka ogaato nooca weerarada ay diyaarinayaan, jawaabta uga imaan kara dhinaca Iran. taasoo jirta wargeyska New York Times ee Mareykanka ka soo baxaya maanta wuxuu ka soo xigtay 4 sargaal oo Iraniyiin in hogaamiyaha sare ee Iran Ali Khamenei uu amar ku siiyay hoggaanka sare ee ciidanka Iran inay u diyaargaroobaan dagaal la galo Israa'iil, isagoo sidoo kalena u soo jeediyay inay diyaariyaan qorshayaasha mudnaanta leh ee ay jawaabta ku bixinayaan ee u qalma in ay ku muujiyaan cid kastoo soo weerarda in ay xanuun dareensiin karaan. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in jawaabta la bixinayo dhinaca Iran ay ka bixinayso weerarada inay ku xirantahay hadba nooca weerar Israa'iil ay ku soo qaadayso dhinaca Iran. iyadoo hadda ay warbaahinta Israa'iil sare marisay sheegista in uu dhow yahay oo go'aan uu sugayo loo diyaar garoobay weerar lagu qaado dhinaca Iran ayaa shalay oo idinka arkay warbixin gaar ah oo bartaydan YouTube ku baahiyay oo wargeyska The Times Ingiriis ka soo baxaya oo ay raaceen warbixintiisa, sidoo kalena ay baahiyeen wargeysyada maxalliga ee Israa'iil in Israa'iil dib u dhigtay oo diyaarinayso qorshe cusub weerar ay ku qaado dhinaca Iran sabab la xiriira
in qorshihii ay diyaariyeen ee weerar uu gaaray dhinaca Iiraan. Markaana Gaza dhinaceeda waxay ku jirtaa maalmo aad u argagax badan oo niyad jab ah sabab la xiriira weerarada naxariis darrada ah iyo xasuuqa Israel ay ka geysanayso gudaha marinka Gaza. Ilaa 67 qof ayaa maanta ku shahiiday weeraro Israel ay ka geystay dhinaca waqooyi, waxaana la sheegayaa in dhaawacyadu intaas ka badan yihiin. taas waxaa dheer in Israel si toos ah u bartilmaameedsanayso isbitaalka ugu weyn ee hadda shaqaynaya ee dhinaca waqooyi ee Kamal Adwan, kaasoo la arkay in burbur soo gaaray qaybihii bukaanada ay dhaawacyadu yaaleen. qaar ka mid ah dhaawacyadana waaba laga soo saaray sawirro halka laga soo gudbinayo waxay ahaayeen kuwo naxdin leh oo la arkay in dhaawacyada oo lagu jiidayo sariirahooda si loogala fogaado duqeymaha Israel halka ay ka geysanayso. agaasimaha isbitaalkan oo la hadlay telefishinka Al Jazeera wuxuu sheegay in ciidamada Israel ay ku dhow yihiin in isbitaalka qabsadaan, taasna hadday dhacdo waxa uu sheegay in ay dhimasho badan iyo waxyaabo argagax leh halka in laga arki doono. Israel waxa ay maalintii 22aad ay gelisay go'doon aad u daran waqooyiga, gaar ahaan xerada Jabaaliya sabab la xiriira inay halka diideynay dawooyinku galaan, biyuhu galo, cunooyinku galaan. taasina waxay sabab u noqotay in dad badan ay xaalad aysan hor u arag ay wajahaan. intaa waxa dheer in Israel sidoo kale diidayso in dhaawacyadii meedadka laga qaado wadooyinka, iyadoo agaasimaha hadda isbitaalkan Kamal Adwan uu sheegay duqeymo xasuuq oo ka dhacay bartamaha iyo waqooyiga marinka Gaza in Israel diiday in la qaado dhaawacyadaas. kooxihii gurmadkana way shaqo joojiyeen sabab la xiriira waxa si toos ah loo bartilmaameedsanaya gaadiidkooda iyo meel kasta oo hawlgal samata bixina ay ka fulinayaan. xaaladda marinka Gaza mid ka mid ah xaaladihii iyo maalmihii ugu adkaa ee taariikhda dunida oo bilaadanka ay wajahayaan sida la sheegay. taas oo jirta wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Safadi ayaa ugu baaqay dhigiisa Mareykanka Antony Blinken inuu cadaadis saaro Israel si ay u joojiso weerarada isirsifaynta ah oo lagu tirtirayo Falastiiniyiinta. inta lagu guda jiray kulan ay maanta Jimcaha ku yeesheen magaalada London, kaasoo sidoo kalena ay ka qayb galayaan wasiirro Carbeed oo arrimo dibadeed. Al-Safadi oo ka hadlayay howlgallada militariga Israel ay ka wado waqooyiga Gaza iyo xaalad bini'aadantinimo si xumaanaysa ayaa wuxuu yiri waxaanu aragnay isirsifayn oo dhacaysa, taasina waa in la joojiyaa. dhinaca Turkigana kooxda PKK ama ururka PKK ee Kurdiyiinta u dagaalamaya in ay helaan kana go'aan qaybaha ay ka degan yihiin dhinaca Turkiga ayaa sheegtay weerarkii Ankara ka dhacay 2 maalin ka hor, kaasoo lagu beegsaday ama 2 qof oo dagaalyahana ah ay ku weerareen xarunta wax soo saarka hawada ee militariga Turkiga iyo goob ka mid ah astaamaha hadda uu Turkigu ku faanayo, maadaama xarunta warshadaheeda ay soo saaraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwa kumaatiga u kacay diyaaradda uu hadda uu Turkigu doonayo inuu ku qabsaday kan. war-saxaafadeed ay baahiyeen PKK oo warbaahinta Turkiguna ay soo xigtay waxa lagu sheegay kooxdeena madaxa bannaan ayaa fulisay weerarka, mana ahan mid xiriir la leh doodaha siyaasadeed ee hadda ka jira Turkiga oo ah hadallada muujinaya yabaha dowladda ee wadahadal nabadeed oo la yeesho hogaamiyaha PKK Öcalan ee xabsiga ku xiran. tani waxay la xiriirtaa in hindise cusub uu doonayo inuu soo bandhigo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si xal loogu helo xaaladda gudaha. tani oo la xiriirta in Turkigu ka baarandegay in colaadda sii fidisay bariga dhexe ay soo gaarto gudaha Turkiga iyadoo kala qaybsanaan ay ka jiraan iyo kooxo dagaalamaya ay gudaha Turkiga ka howlgali karaan. wuxuuna markaa sheegay in hogaamiyaha sare PKK uu sii dayn doono oo heshiis nabadeed uu la geli doono, taasoo qayb ka noqon in PKK la kala diro. kooxaha PKK aad ayay daacad ugu yihiin hogaamiyahooda Öcalan ee ku xiran xabsiga, waxayna sheegayaan nooc kastoo heshiis soo qaato in ay dhinacooda fulin doonaan. shirkadda Microsoft ee Mareykankana waxa ay soo saartay digniin la xiriirta doorashada Mareykanka, waxayna sheegtay inay sare mareen weerarada dhinaca internetka ee ku qaadayaan Iiraan, Ruushka iyo Shiinaha si bay dhaheen u carqaladeeyaan marxaladda iyo jawiga doorashada. Clinton Watts oo ah maamulaha guud ee xarunta falanqaynta khataraha ee Microsoft ayaa qoraal uu soo dhigay ama uu baahiyay waxa uu ku sheegay in dowladda Mareykanka ay hadda ku qasbantahay inay qaado tallaabooyin dheeraad ah oo ka dhana si looga baarandegi lahaa weerarada dhinaca internetka ee kordhaya ee cadowga shisheeye ka imaanaya, kaasoo ugu dambeeyeen sida uu sheegay weerarada ay qaaday Iiraan ama kooxaha Iiraan xiriirka la leh dhinaca internetka. Watts wuxuu tilmaamay in weerarada dhinaca internetka ee Iiraan xiriirka la leh in ay ku guuleysteen inay dhacaan ama ay jabiyaan qorshihii ololaha ee Trump iyagoo u diray Biden ka hor intuusan ku dhawaaqin inuu ka tanaasulay tartankii doorashada madaxtinimada. mar uu sharaxayay khabiirkan dhinaca khataraha ee shirkadda Microsoft ka tirsan qaababka ay weerarada internetka u qaadayaan saddexdan dal, wuxuu sheegayaa in Ruushka kooxaha taageersan ee dhinaca internetka weerarada ka fuliya ay bartilmaameedsanayaan ololaha Harris ee xisbiga dimuqraadiga oo isticmaalaya sirdoonka macmalka AI. dhinaca China-hana wuxuu sheegay inuu Shiinuhu ay diiradda saarayaan musharaxiinta iyo codbixinta
ka dhexdhacaysa gudaha Congress-ka iyo gobolada Mareykanka si uu u qiyaaso ama uu falanqeyn ugu helo natiijada doorashada nooca ay noqonayso. Si ka duwan Iran iyo Ruushka, Shiinaha wuxuu sameynayaa inuu beegsanayo gobolada iyo codbixinta ka socota gudaha gobolada iyo cidda ku soo baxaysa golaha wakiilada baarlamaanka Mareykanka. Ugu dambeyntiina Soomaaliya waxa ay isku diyaarinaysaa inay fiiriso wax soo saarkeeda muddada dheer lagu taamiyay kheyraadka, iyadoo una markab Turkigu leeyahay oo baaraya kheyraadka ku jira badweynta Soomaaliya ilaa 6 goobood oo la sheegay ama xirmooyin in la bartilmaameysanayo oo ku yaala xeebaha koonfureed ee dalka ayaa markabkan hadda ku xiran dekedda magaalada Muqdisho. Waxa uu baaritaan ka sameyn doonaa la xiriira gaaska dabiiciga iyo kheyraadka kale ee muhiimka ah. Arrintan oo lagu sheegay inay tahay wax lagu doonayay in isbedel uu ku yimaado dhaqaale burburka dib u dhigay dalka ee uu ku jiro. Waana tijaabadii ugu horeysay oo rasmi ah oo la sameynayo, iyadoo marka hore qiyaaso iyo falanqeyn la sameynaya ayaa hadda markabkan oo ka mid ah maraakiib aad u horumarsan qalabka ku xiran wuxuu hore ugu guuleystay inuu soo saaro gaaska dabiiciga ee badda madow. Munaasabada lagu dahfurayana waxaa u yimid caasimadda Muqdisho wasiirka tamarta iyo kheyraadka dalka Turkiga Albashan Bayrakh, waxaana soo dhaweeyay dhigiisa Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo wasiirka difaaca Cabdiqaadir Maxamed Nuur, iyadoo horeyna wasiir ku-xigeenka difaaca Turkiga uu shalay usoo gaaray Muqdisho. barnaamijkii maalinimo ayaa intaasi noogu eeg. hadduu intaynu barnaamijka ku kulmayno waxaynu kaga tegayaa wararka iyo dhacdooyinka isla xilliga dhacayaan inaad kala socon kartaan barahiga Facebook iyo Telegram oo tabin joogta aan ku sameeyo idinkoo ku helay Imaan Jaamac. intaynu barnaamijka habeenimo ku kulmaynana sidaas iyo amaana Allah.